Fayruska corona ama COVID-19 waa fayrus halis badan isla markaana ay saameyntiisu gaartay inta badan dalalka caalamka. Waa fayrus walaac badan ku beeray dadyowga dunida, wuxuu galaaftay nolosha dad badan oo ku noolaa caalamka. Fayruskan ayaa markiisii hore ka soo bilowday magaalada Wuhan ee dalka Shiinaha, isagoo hadda gaaray in ka badan 70 dal oo ku yaala dunida. Wadamada sida aadka ah oo u saameeyay fayruskan waxaa ka mid ah Shiinaha, Talyaaniga, Iiraan iyo Kuuriyada Koonfureed. Haddaba, maxaa sababay fayruskan dilaaga ah ee walaaca badan geliyay dunida? Daraasado ay sameeyeen dhaqaatiirta iyo khubarada caafimaadku waxa ay ku sheegeen in fayruskan corona uu ka dhashay cunista shimbirka loo yaqaano koboliga ama fiidmeerta. Fiidmeertu waa noolaha kaliya ee naasleyda ah isla markaasina duula. Waxaa aad looga cunaa wadamada dhaca bariga qaaradda Aasiya sida Philippines, Thailand, Cambodia iyo China. Cunista fiidmeerta ayaa ah mid caan ka ah dalalkan aanu kor ku soo xusnay, waxaana maqaayadaha dalalkan aad u buux dhaafiya dadka jecel cunista shimbirkan. Dadkan ayaa aaminsan in fiidmeertu tahay cunto aad u wanaagsan, isla markaasina u roon caafimaadka qofka. Tusaale ahaan waxay ku doodayaan in dhiigga fiidmeertu uu ka qayb qaato hagaajinta habdhiska neefsiga ee bani'aadamka. Sidoo kale waxay aaminsan yihiin in cunista indhaha fiidmeertu ay u roon yihiin dadka qaba xanuunada indhaha, isla markaasina la ildaran aragyarida. Dadka cuna koboliga ama fiidmeerta ayaa ku kala duwan qaab cunitaanka. Qaarkood ayaa cuna isaga oo nool oo aanan la karin, qaar kalena waxa ay ku kariyaan biyo, intaa kadibna waxay cabaan maraqiisa, hilibkiisana way cunaan. Khubarada caafimaadka ayaa sheegay in fayruska corona uu ka dhashay cunista fiidmeerta, waxaana la sheegaa in qofkii ugu horreeyay ee laga helo fayruskan uu ka soo iibsaday suuqa Wuhan koboliga isla markaasina uu cunay. Intaa kadibna xukuumadda China ayaa gabi ahaanba xirtay suuqa hilibka ee Wuhan. Coronavirus, fayrus gilgilay dunida.